jiirkiis la haysta jidinka ma qoslo. qof asagiiba waxa weeye lagu dhagan yahay oo social media ceebtiisii taallo hadduu yidhaahdo waa aamusaya oo uu xeeriyo wax badan xeeriyo runtii way adkaanaysaa inuu mataqaana qofkaas caafimaad ahaan iyo maskaxiyan iyo caafimaad ahaanba u noolaado. video ay wada sheekaysan jireen anigu ma intaanan afahimay isguursan video ay u dirtay ninkaas oo ku rikaateeyay kadib markaan uu ogaaday inaan isguursanay oo iyada ku rikaateynaya jira. videoyaasha marka social media si kasta waa yeelo waa ka saari weyn, si kasta waa dacweyni, meel kasta waa maray, meel kasta way yeelaa. marka videogaas imagekaas waa mid xaqiiqa oo jira oo youtube-ka iyo facebook iyo meel walba yaala. weliba ka hadda mid maaha kuwa kale aan ka saarnay oo yani aad u foolxun baa jiray oo kuwaas ilaahay wuxuu nagu guulayay inaan gacanteeda ku saaro. wiilkii lahaa facebookaas yani gacanteeda ayaan uga saaray facebook oo kanaalkiisa waa channelkiisa ciwaankiisa waan ka xiray. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعلى وناكسن داوديال مكسب dunida daafiyada ka joogta waa mar kale clip cusub. halka adiga dheehanaysan ama adiga daawanaysa oo bartaan YouTube-ka kulleena hodo fashion oo walaashooda la soo dhawaada dhamaantiin. waxa ka codsanaya dad channelka ka cusub tahay inaad subscribe kana furtitaan nooga mid noqotay aad baad ugu mahadsantahay. inta kadib saynu wada ognahayba social media waxa ku jirta ayaamahan dambe walaalkan qadar iyo walaasha Fahiima oo runtii isku haysta ama su'aalo badan isku marinaya. imaka waxaan haynaa jawaabtii qadar oo qadar uu leeyahay waan isdifaacaya meena naftayda ina yani xuquuqdeeda meel laga dhaco uma baahni. saynu wada ognahayba waan ogeyn in Fahiima cod soo duubtay ama clip soo duubtay ay leedahay waxa la igu sameeyay videogaas oo ah in aan yani anigu aan gacanteeda ka diray oo aan u diray saygeygii hore oo aan haddana ku arkay social media. waxa jirta bay tiri markii hore arrin la ii soo sheegay oo la yiri waxay ku jirtaa social media ama qaybaha dadka xunxun la geliyo kilibadooda. markan kalena maxabisku wareysanayna waxa jira aniga ayaaba WhatsApp-ka la igu soo diray. haddana waxaan arkay Imraan Qaraami oo haddana isla haysna ruuxiisu lahaa waa la ii soo diray clipkaas. waxaan arkay Sheekh Badbaado oo isla sheegay oo yiri waan arkay marsi horeysay baan ku arkay laakiin waa laga saaray Facebook-gaas. runtu waa kamarays yani waxa soo dadii ma wada oo noqon karaan isku af ama yani isku hal aray ma noqon karaan. walaalkay qadarna uu soo hadlay oo wuxuu dhahay anigu arinta shaqo kuma lihi laakiin madaxa meel ka sareyso la taabtaama jirtay haday dacwo tahayna go tag hadii aanay hayn aan rabin dacwana ana tagay kaaga horeynaya. bal clipkiis waa kana soo daawano. kiiska marka booliiska la geeyo booliisku wuxuu sameeynayaa qofkii wala xiriiraya Soomaa way adiga oo kiiskii booliiskii sidee iga codsan kartaa videoyaas adiga haysa delay taasna arinta ka dambaysa idin sheegay. midda saddexaad laba qof oo isqaba oo xalaal isku qaba sababta ay video isugu duubayaan oo ay qofka ugu diraya maxaa looga baahan qofkii nool baaba laaya qofkii oo nool baaba halkan taagane sababta video sawir image dhaqdhaqaaqaya ama video soconaya faa'iidada uu qofka naandada waaweyn baan nahay moogtahay 15 jir kan ugu yar meeshan ku jira 15 jir waa gaaray. video ay u dirtay ninkaas oo ku rikaateeyay kadib markaan uu ogaaday inaan isguursanay oo iyada ku rikaateynaya jira. videoyaasha marka social media si kasta waa yeelo waa ka saari weyn, si kasta waa dacweyni, meel kasta waa maray, meel kasta way yeelaa. marka videogaas imagekaas waa mid xaqiiqa oo jira oo youtube-ka iyo facebook iyo meel walba yaala. weliba ka hadda mid maaha kuwa kale aan ka saarnay oo yani aad u foolxun baa jiray oo kuwaas ilaahay wuxuu nagu guulayay inaan gacanteeda ku saaro. wiilkii lahaa facebookaas yani gacanteeda ayaan uga saaray facebook oo kanaalkiisa waa channelkiisa ciwaankiisa waan ka xiray. okay marka wiilkaas marka aan idin sheegayo video marka ay ku leedahay jiray wiil baa dhibaateeyay halkaas jooga bishaara ay uga sheekaynayso waa marka waxa la rabaa videogaas in aniga dusha la iga saaray saan u fahmay ama wax kala jiro. videogaas video aan ahayn baa la duubay oo qola kale ama waxba la sameeyay oo kanaal baa la geliyay si aniga la yiraahdo asaga ku ogaa oo u diray si aniga la igu yiraahdo. okay intaas horta waa isla fahanay Sooma anaa soo haray marka aniga khadar ah intaan website sameeyo aan image xaaskaygii xalaashaydii gogoshaydii maryahaygii
in aan geliyo xataa waali u malayn ma inaan gelin karo wallahi iska daa miir qab iyo mataqaanaa anigoo caadigaygaan inaan taan geliyo oo qasdo inaan YouTube inaan intaan sameeyo fiidiyoyaal aan qaado aan website geliyo inaad yaro waxa way gar wallo islaam macquul meel noqon ana waal xataa ma lahays macquul noqon okay arrinta marka maxaa ka runa maxaa ka beena inta markii la ogaado qof walba ogaanaya meesha wax ka jira arrinta marka aad idin sheegay shaakaas cad aan qabo waxa soo gashtay wax kala ma arrinta ugu weyn ee ugu muhiimsan ee meeshan laga rabo waxa weeye in shaakaas cad lagu saxeeyo sharafteeda lagu dhaco maqaamkeeda lagu dhaco diinteeda loo gafo la icaayo la idibaateeyo mataqaanaa in aan nolol samaysan lagu dadaalo waa group iswata oo barnaamijkan ugu talagalay in ay aniga igu dhaleeceeyaan igu dhibaateeyaan ay mustaqbalkaygan ugu ciyaaraan waa u fahmay dad yarna ma ahan okay marka Soomaali weyn baa marka hal mid weydiinaya Soomaaliya shalay wax walba waa idinka qaat Soomaaliya shalay wax walba waa igu tiraahdeen Soomaaliya meel kasta shalay waa igu rafaadiseen Soomaaliya si walba shalay waa iga yeesheen wax allaad ay wax harteen waa iga samaysateen saasa ay kala goosgoosateen laakiin maanta idinka yeeli mayo aniga oo sidaas la isi ceyrsanayo intaasoo dhibaato wali aan la aamusanahay oo xataa cadaymaha aan hayo oo waxyaalaha aan hayo oo dhan aan soo bandhigin oo aan fahmin arrinteeda ka hadlin oo la aamusan haddana idinka qaadan maayo walaalayaal dulmi aniga cad la igu samaynayo har cad inta la soo fariisto qof ilaahay maankiisa iyo garashadiisa iyo muuqaalkiisaba dhamaystir intuu aniga soo fariisto uu rabo inuu igu aflagaadi igu dhaleeceeyo igu dhibaateeyo sharafteedan ku ciyaara Soomaali idinka qaadan maayo okay in qofkii caqli la waayo taarto waa wax shay inta ugu filan fahima ay soo harta fahimo runtan ku sheegaya wala marakan farta aqortid waa kula qoraya farta aqortid waa kula qoraya waxaan ka wadaa horta aniga YouTube dambe barnaamijkaaga ku saabsan ma ka hadlay kana ugu dambeynaa waana balan sababta aan uga hadleen waxa way meeshaan maxkamadii ma ah wadanka aan wada joogno sharci baa ka jira qofku sharci iyo xuquuq iyuu leeyahay laba statement baa loo kala qaadaya mid waa domestic violence oo qofkii haddii dhibaato u geystay yani qaabta ama tusaysid wada ogta midda labaad ee aan raba inaan sharciyan ugu wada hadalno waxay tahay qofka porn star ama sameeye fiidiyoyaal khalad ah qof ka sameeyo oo gudbiya revenge porn site sharci la yiraahdo qabanaya qofkan wuxuu kaaga yani wuxuu isku dayayaa in uu kugu dhibaateeyo fiidiyoyaal noocaas haddii marka qof noocaas oo kale meel sharci wada sharci la jooga uu sameeyo sharcigaas qabanaya waa intaas oo sano xariga dhibaato intaas ay buu maraya dii la waayo marka blackmailing baa la yiraahdaa hadda marka aniga blackmailing ugu sameeysid oo adiga ama soo jeeda ama sii jeeda video intaas kadib aad website gelisid oo aad rabtid in aniga ugu dhibaataysid horta evidence baa laga rabaa wadankan wadan sharci la waayo sharcigan kala baxayna wallahi billahi tallahi markan ay ka dhamaatay aniga kuma ceebaynayo kuma caynayo kuma dhaleecaynayo kuma dhibaataynayo waana isubaa guurka ilaahay baa jideeyay furitaankan ilaahay baa jideeyay laba wada loo kala yeelo haddii marka nolosha la isku fahmi waaye guurka oo wada noolaanshaha la isku fahmi waaye ilaahay wadadan kala jeeyay wuxuu yiri walaalayaal kala baxa kuna kala taga maxaa ii daba socotaa maxaa iga rabtaa soomaynaan kala tegin soomaynaan kala harin walaal allaha muuse alla ahayn ma iga harti inta haddaa fahmi weydid sharci baa noo dhexa kiiska booliis baa geysay soo maaha booliskan sugayaa maxkamadda haddaan waayaan anaa geynaya kiiska oo wallahi oo billahi oo tallahi anaa geynaya waayo waxaan it's too much way ka badan tahay intii xadkii waa dhaaftay fahim markan xadkii markan waa dhaaftay ilaahi subxaanahu watacaala wuxuu yiri qof walba ii nabadgeli shaydaan jin wax walba qof kasta oo nool aniga ii nabadgeli anaa la xisaabtamay laakiin adiga waxaagu ma ahan nabad waa kaa waay asxaabtada qaaliga oo soo wada daawateen walahi runtii waan ku wareeraan oo arrintan kan marka dhageysatay runbad moodaysa kan marka dhageysatay runbad moodaysa laakiin baraha bulshada waxa u badanaa ma dadku ay isla dhex marayaan waxay tahay
maadaama inantan markii hore ay hayd inan kilib u dirtanin ama kilibo badanba uu ka hayayba halka ay mid uga dirtay kilib yani ama 2 kilib ama 3 kilib uga dirtay way dhici kartaa in 10 kilib u dirtayna way dhici kartaa in ay tahay arrin hadda cusub wax walba waa wax dhici kara macnaa ama aqliga bini'aadanka qaadan karo laakiin waxaan anigu marka aan maskaxdayda iyo fikirkayga yar ku qastay waxa ay tahay waxa jirtay hadii ay jirto nin naagtiisa macnaha iyagoo wada joogaan kilib u diraysa ma garan kari waayo qofkii oo nool baaba jiraba waa runtiisa khadar yani qofkan waa isagoo xaadir uu joogaaba yani markii uu joogay xagga iyo Afrika laakiin qof jooga oo la joogo xaadir isagoo haddana kiliban u dirayay maskaxdan wax qaadan karaya maaha wallahi runtii laakiin inagu anyway ma garan karno inuu xaaladdu sida ay tahay alumba og oo qulubta dadka daalacda laakiin waxaan oran lahaa laba talo labadaba uu ku soo jeedin lahaa talana khadar baan soo jeedin lahaa talana iyadana soo jeedin lahaa khadar horta waxaanad hayna kuma raacayaan hadii ay jirto arrin adiga ku qusaysa ama ku gaar oo ay gabadhaadi hore ogaatay garaale oo gabadhaadi hore ogaatay oo aad adigu yani mustaqbal iyo nolol yani samaysanaysid waa wax dhici kara inay arrintaasi timaado hadii si aanay jirin inanta maalintii aad guursatay ama aad doonatay waad garanaysaa dadkii aad ka doonatay iyo yani ehelkeedii iyo qaraabadeedii marka waxa fiican in arrinta lagu dhameeyo arrin ka baxsan social media aad gartaadana qadatay hadii arrintaasi jirto hadii si aanay jirin labadaba aad yani gartantaan oo gardhigataan kol Ingiriiska dad badan baa jooga oo Soomaalidu aad bay ugu badan yihiin waa la helayaa hatta hadii aan yani sharciga la tiigsan ama sharciga aan la tagin waxa jirta waxyaabo badan oo yani inagu Soomaali ahaan aynu ku dhameyn karno xaalad kale oo de la soo gogol fadhiisto inantii iyo inankii la kala shaafiyo waxyaabaha ay kala tirsanayeen ama waxyaabaha ka jira runtii anagu wadaniid lama joogno ma sheegi karno waxa jira guntiina horena aluuba og se waxaan anigu fahimo u sheegaya waxa ay tahay fahime walaal marka aad nin hore u dirtay waxyaabo badan ay se hadda aad leedahay haddana arrintan way cusub tahay horta runtii nin aan ku qabin waa adagta inaad sawiro u dirtaa oo sawiro iyo waxaad qaawanta yani aanad ugu talagelin social media waad ku qaldantay inaad marka horeba u dirto oo wax runtii wanaagsan maaha laakiin anyway way dhacday taasi tan kalena tii hore markay cashar ku ahayd aad yani cashar ku qaadatay tan dambana inay cashar ku noqotay ahayd oo horta adigoo markii hore kilibad diray oo kilibada social media la geliyay inaad haddana ninkaaga kiliba kale u dirtid yani way adag tahay wax maskax u qaadanaysa maaha marka bal anigu ma sheegi karo arrintu halka ka xiran tahay ama ka xidhmi lahayd salaadu laakiin haddii ay jirto ood ogtahay adigu waa horta marka hore waad qaldan tahay marka labaad haddii ay jirto oo aad ogtahay waad garanaysaa yani maalintii lagu guursaday dee tol iyo reer baa xididay oo qaraaba isku timiday okay haddaba qaraabadii iyo tolkii inaad sheekada loo wareejiyaa way qurux badan tahay fahim haddii arrinta dood ka qabtid ama xal Soomaali ku dhamee oo Soomaalidu xalin jirtay ku dhamee arrinta ama arrinta booliska aad sheegaysid ku dhamee arrinta يعني وحل إن الحلا مهم ويان يعني سوشيال ميديا ما تقدر هذا سوق قبصتان ما تقدر سوشيال ميديا نوع صود بتسنى وعصود وين قصدي يسوي عد كود بيه بنقطنا لكن طلاب شرعي وافق صنبان يعني كقاضي يارنتها وحي ظلمينا ونسكلي حنا يودي وفي عنتها إن أدلونا كسرتي وكليبكي الهراء صدوبتك هو ضمبيو كنت تاسن رجيني أنا تسميسيد حقيقة واي وحنا أحسن معها إن عاد maanta dhan isku qabsata social media marka aad tahay qof arrimaha horena meesha uga dhaceen kulli aad unba ceeda lagu saaray mar walba gabadh baa tahay gabadhuna mar walba ceebtu way soo kortaa anigu ma sheegi karo ilaa hadda ma xaqiijin karo maadaama aan cadeynaynin in uu qadar soo duubay ama aad adigu been alrifiso ama arrinta wax jiraan ma sheegi karo ilaa hadda marka waxaan leeyahay saas ayaan insha Allah binaaykan rajeynaya inaad arrinta ku soo gabagabaysaan runtiina wax wanaagsan maahan in aad ninaan ku qabin xataa aad u dirtid kilibadaada runtii wax wanaagsan maahan wax wanaagsanna waqtiga ma sameyn laakiin way dhacday hadii ay dhacdayna hadda wixii dambe inaad ka taxadirtid baa muhiim maadaama aad gabar tahay oo aad markasta mustaqbal iyo nolol sugaysid aad baan idin salaamay asxaabtayda qaaliga intaas waa in yar wanaa iyo intii fikirkayga caqligayga ku salaysnaa baan ka hadlay waxaan idin leeyahay asxaabtayda qaaliga
waad ku mahadsantihiin daawashadaada daawateen ama qaybtaada iga siiseen waqtigiina waan idinka mahad celinayaa waxaan idin leeyahay intaynu kan iyo kulanti dambe ku kulmi doono aad baan idin salaamaya oo walaashin hodana idin leh aad baan idin salaamaya